garyaqaan cabdiqaani maxamed xuseen mandela oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani aana shakhsiyaadka u ololeeya nabad iyo horumarka Soomaaliland ayaa waxuu baaq u diray dhalinyarada Soomaaliland wuxuuna yidhi bismillaahi raxmaani raxiim dhambaal ku socda dhalinyarada qaranka kuma hadlaya afka xisbiga aan ka tirsanahay ee wadani oo waxaan tixgelinayaa howlwadeennada xisbigaygu u dirsaday komishanka doorashooyinka qaranka waxaan ku tiraabayaa aragtidayda shakhsiga waxaan soo jeedinayaa taladeeda qofnimo waxaan taxayaa oo aan taageerayaa tusmada danta u ah talweynaha Soomaaliland ee aan ka dhashay waxaan ka mid ahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku dhashay nabadgelyada ku koray xasiloonida ku kabcay dal uu ka hana qaaday nidaam iyo kala dambeyn waxaan dhowrayaa rajada qarankan iyo riyada shacabkan fariintaydu waxa ku socotaa dhalinyarada qaranka oo ah laf dhabarta iyo dhuuxa dawladnimada Soomaaliland dhalinyaro 13 November waxaanu u dareernay goobaha codbixinta inagoo halkii ka sii wadna geediga dimuqraadiyadda Soomaaliland dalkeena waxa ka hirgalay nidaamka asxaabta sida daraadeed waxaanu kala taageersanahay xisbiyada qaranka doorashadii 13 November waxay ku bilaabantay jawi nabdoon goobaha codbixintu waxay ku xidhmeen deganaan dalkana waxa ka jirtay leeyda dimuqraadiyadda iyo dabaylaha isbedelka balse nimco waliba nusqaan leh waxa soo baxay cabashooyin kiciye dareenka iyo caadifada taageerayaasha waxaana inaga galaafteen nafaha muwaadiniin aan inaga guyi kareen dhalinyaro waxaanu nahay codeeyayaasha ugu badan kuwa ololaha iyo dibadbaxyada muujiyana waa inaga kuwa ku dhintay ee ku dhaawacmaana waa inaga kuwa u hiiliya ee u hagar baxaana waa inaga waxa la inooga baahan yahay inaynu fahanno danteena iyo danta qarankeena waxa la inooga fadhiyaa doorka aynu ku leenahay dawladnimada iyo horumarka sida daraadeed waa inaynu garanaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadgelyadu waa inaynu qayb ka noqonaa deganaanshaha iyo xasiloonida gudaha waa inaynu garab istaagno ciidamada nabadgelyada dhalinyaro qarankan mustaqbalkiisu waa inaga aynu muujino xilkasnimadeena aqligu hayna shaqeeyo xisbiyada iyo mashruuciinta aynu kala taageersanahay waxa ka weyn nabadgelyada waayo nabadgelyada ayaa dhashay tartanka dhalinyaro waxaanu nahay xoogii ay ka tashigayo wadayaashii isbedelka waxaanu nahay cududda ugu badan bulshada Soomaaliland waxaanu joognaa waqtiga aynu ugu aqliga wanaagsaneyn waxaanu ka warqabnaa xadaaradda iyo ilbaxnimada caalamka waxaanu ogsoonahay sida dhalinyar badan oo dunida inagula nool dalalkoogii iyo dawladahoogii u bedeleen dhalinyaro waxay noo taala shaqo adag waxaanu dhiganaynaa sharci adag si aynu uga gudubno shuruud adag inagoo ka dhabaynayna rabitaanka shacabka Soomaaliland dhalinyaro waxaanu nahay hanka iyo himilada qarankan waxaanu nahay awoodda nabadgelyada iyo jiritaanka amniga waxaanu nahay indhaha xasiloonida iyo deganaanshaha waxaanu nahay ubaxa iyo muraayada kaliya ee Soomaaliland iska dhax daawato waxaanu nahay Soomaalilandna waxay ahaanaysaa waxaanu ka dhigno wax ahaanshaheenu wuxuu ku jiraa gamcaheena iyo garashadeena sida daraadeed Soomaaliland way fool xumaanaysaa haddii aynu si fool xun u fikirno Soomaalilandna way qurux badnaanaysaa haddii aynu si qurux badan u fikirno dhalinyaro u kaca haybada dawladnimadeena ka qayb qaata horumarka qaranka doorka ciyaaraha himilada shacabka muujiya dareenka wadaniyada xoojiya waxqabadka dhiirigeliya wadajirka u dhabagala wax soo saarka dhalinyaro haynu yeelana hal ujeedo sida aynu u leenahay hal dal haynu noqonna hal mid sida aynu u leenahay hal af aynu yeelana aragti qura sida aynu u leenahay diin qura waad mahadsantiin Soomaaliland guul iyo gobol